waxaan halkan ka cadaynayaa madaxweynahan ugu mahadnaqayaa in shaqadii aan qaranka u hayaanan halkaa wixii ka dambeeya sii wadi karayn aadna wuu u mahadsan yahay wixii tale iyo tusaale iga baahdo diyaar baan aho ninka siinayaan ahay laakiin maanta kuma sawirmi karo go'aanka qadhaadh ee dhibicda dhibbiisha ku areerkayaga iyo gobolkayaga iyo tolkayaga aad diidaysaan xaq baad u leedihiin inaad diidaan laakiin waxaynaan natiijadeeda mahadin doonin wax cadowgu ka faa'iidaysan karo taariikh madow lagu geli karo inaga ilaaliya waa iga tolnimo iyo taasina dardaaran madaxweynahana waxaan uga mahadnaqayaa muddadii intaa la ekeydeen soo wada shaqeynay sanadka ahayd sidii aan u wada shaqeynay aad iyo aad baan madaxweyne kaaga mahadnaqayaa qaranka reer Somaliland waan u ducaynayaa waan una mahadnaqayaa intii aan xilka hayay siday ii garab taagnaayeen siday ii support gareynayeen siday iigu hambalyeynayeen xilka iyo hawsha sidaan u gudanayo aad baan idinka mahadnaqayaa aadna wuu u mahadsan yahay wixii tale iyo tusaale iga baahdo diyaar baan aho ninka siinayaan ahay laakiin maanta kuma sawirmi karo go'aanka qadhaadh ee dhibicda dhibbiisha ku areerkayaga iyo gobolkayaga iyo tolkayaga na inaan Axmed Yaasiin ahaan qaato oo ka ku dhawaaqayaan oo igu sawirmo ka macaan ee qabow ee wanaagsan ee tolka dejinayana inuu madaxweynuhu isku afayeen noqdo kaami dadkii u maleynayay nin kursi doonaya nin dane kala dhaafsanaya nin miihika ay kursiga ninkii u hilanaa iyo ninkii hollanayowga welcome baan leeyahay madaxweynuhu ku mahadsan